qodobka aan raacinayaan ku kabaya waxa weeye qodobkii isdhexgalka ee warwarka iyo walaaca ummadda ku keenay ee la yidhi Jabuuti buu ka soo baxay si aynu hadalka u soo gaabino sheekadana u soo kaabino madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku xalay markay ka hadlayeen 26 Juun madaxtooyada waxay isku raaceen gudoomiyuhu wuxuu yidhi xeer baa ka yaala xeerkaasana lagu dhaqaya madaxweynuhu khudbadiisii wuxuu ku yidhi xeer baa ka yaala sida uu gudoomiyuhu sheegay dadka fajiciisa ku noqotay waa la isdhexgalayaa dabeedna deeladii Cabdi Cali Weyd baan soo xasuustay ahayd kayndigaagu buuxaan ninkii dabin libaax dhigay dafutiri sakaaradu markuu soo dul joogsaday wuxuu yidhi umaba daban umaanaan daban baa shir Somaliland ka qayb galayso ayuun baa la oran doonaa waa la isdhexgalayaa saaxiibkay Muuse Biixi Mujaahid Muuse waxaan magan uga nahay haddaanu shacbiga nahay waxaanu magan uga nahay ma maqli karno annagu isdhexgal iyo waa la isu tagtagayaa annagu dad kala maqan ma ogin waxaanu ognahay inay kala maqan yihiin degal roorta iyo daan roorta xamar joogtaa inaanay halkan iman karin baan ognahay mana imanayaan tu kasto dhacdo ma imanayaan shacbiguna raali kama aha shacbiguna diyaaru maaha waxaanay maqlaan waxyaabaha lagu marmarsoonayo waxa kamid ah intaas oo qodob bay inoo ogolaadeeno dabeedna mid bay soo dhigeen wax alliyaale waxay doonaan bay soo dhigi karaan laakiin tii wax ka xaaraantinimaysan Somaliland ma soo dhigi karaan dad maqanina ma jiro dadkii uu joogaa xamar dadkii halkan uu joogaa Jabuuti bay tagaan way ka wareegaan jigjigay galaan way ka baxaan halkaasay gaarisa ka galaan kismaayo yimaadaan xamar bay yimaadaan hargeysa yimaadaan cidina cid fasax uma qaado waa kii bukay oo kii ganacsanay waa ku walba dadka la leeyahay fasax la siiyo dad ujeedo gaar laga leeyahay mana imanayaano waa habeenkii xalay ahayd togeyo iraadatu shacbi iraadatullah wuxuu ilaahay raali ka yahay waxa jira ummadda shacbiga awoodda ugu sarreysa waa ta Allah ilaaha taajire talada leh oo ay tiiso noqotaa waa timacade rabbi qura sax weedhiisa sida uu ku yiri buuxi waa hadraawi waxay intaa ka hooseeyaa waa iraadatu shacab diyaaru manhin ma maqli karno ma arki karno waxdan oo dalkan iyo dadkan ugu jira ma jiraan nimanka halka ummadda haye ee dhaqaale iyo horumar iyo socod iyo wax walba ka hor taagan inay maanta lagu yiraahdaan ma suurtoobayso ummaduna aad bay uga xumaatay lixdan guurada inay dhacdadaas kaga soo beegantana ma ahayn hadalkuna waa inuu halka ku go'aa wuxuu ku go'ayaa xeer baa ka yaala taa waxaan kaga baxayaa arrinta isdhexgalka oo dadku ma seexdaan oo ilaahay ma seexdaan ummad yahay sidaa ku seexda waxa la yaalo wax inaga khuseeyaa ma jiraan waxa la yaalo wax nimanka inaga dhaxeeyaa ma jiraan wada hadalladu way soconayaan oo si Soomaali u dana way ku soconayaan si koox yar oo xamar joogto u dana ku socon maayaan taana intaasaan kaga baxaya waxaan jeclay laba qodob oo dadka lagu celceliyo oo maskaxdooda iyo garashadooda lagu dilayo oo aad meelo badan ka maqlayso inaan ka hadlo oo ujeedada laga leeyahay tahay in dadkan quus iyo gandood lagu rido ay goroda laalaadiyaan oo aanay korba u soo kicin oo aanay iyo qabkoodii leh madax kor u qaadin qodobka 29 sanadood 29 sanadood baa daydayeyseen madax banaani iyo xornimo iyo aqoonsi iyo wixii waa weydeen marka waa in meel kale uga wareegtaan gamba aynu weynay ma jirto waxaynu qabsanay ee dibudejin ee dibudhis ee nabadayn ee walaalayn ee dibheshiisiina markaad ka soo tagtoon halkan inaan idinku jeclayn oo in badan dhageysateen waxaynu qabsanay markaad ka soo tagto arrinta aqoonsiga ku noqoyo ictiraafka ee la ina leeyahay
29 sanood baa deydaysaana ka quusan mayno wax badan baa inoo qabsoomay waxyaabaha maqlaysa waxa ka mid ah kuwaasina derbigii bay soo hirdiyeen oo Soomaaliland la'aanteed dawlad way dhisi waayeen Soomaaliland ixtiraaf way keeni weyday waa marka la inagu shukaaminayo inaynu halkan ka soo yar dhaqaaqno kuwana leeyihiin kuna yar dhaqaaqo dabeedna meel dhexe isugu taga waa marka xaqeena la duujiyo ee la ina dulminayo waa tacadaynaysa inaynu guulaysanay ee wixii aynu daloolisa ridaynay ay macna sameeyeen oo ay nuglaatay meeshii oo aynu maanta ku dhownahay inaynu ku farnaxbadii ugu dambeysay oo aynu ka dhaxboodno ayaana leeyahay quusta 29 sanood 29 sanood cimriga ummadda wax aliyaala wax macno ku leedahay ma jirto mararka qaarkood waxa la sheegay in Ethiopian oo 114 jir ah oo coronavirus ka kacay balka maxay 29 sanood ku yihiin 8 baa u dheeraadana waa qof dad baa doonaya inay Ingiriiskii soo arkay maamulkii 9 sanood musuqmaasuqa soo arkay Maxamed Siyaad Barre oo wixii ka dambeeyay soo taagnaa ayaa doonayay imkan inuu soo taagnaadaan Soomaaliland goorta la aqoonsanayo ilaahay baa goorta la aqoonsanayo dadaalka dadkana iyo dawladoodana way ku xiran tahay marka ayaan quus leedku ridinay 29 sanood cimrigii ummadda waxba kuma ahay inaguna riwaayado oo dhan soo wada joogmeynay intaynu mathilaynaa laakiin tii maanta marka doodaha dhageysato shalay BBC da doodii ka baxaysay Soomaaliland meel bay soo gaadhay warqadii aqoonsiga ma helin laakiin tii way ku jirtaa systemka adduunyada oo dhan bay ku jirtaa calankeeda ku jira doodeeda ku jirta inta u garaabaysa ayda ka badan marka ayaan la idinku dagin oo la idinku oranin quusta 29 sanood baa xalaayeen waxba meynaan waayin in yar baynu ula saarnaa waxaynu socdaal sameeynaynu galaabaxaynay waxbay sameeyeen waxaynu gudaha ka sameeynay waxbay sameeyeen i'tiraafka maqani meel kale kuma maqna inagu inagu maqan yahay doorashooyinkeenu ka gaabinay intaas oo hawloodo aynu lahayn baynu ka gaabinay oo adduunyadu inagu aqoonsan lahayd ha u qaadanina in la qaadan waayay ma golayaal badan oo adduunka baa la inooga garaabayaa ha ku quusanina markaas waa yeelina mid kalena ha yeelina mid oranaya wada hadalladan iyo waxa wata Mareykan iyo dawlado waaweyn iyo waxa dabeedna quusku ridaya qofku markuu qalbigiisa adkaysto ee uu la xaamato ee uu xajisto ee uu qalabku u baahan yahay haysto kuna qanacsan yahay inuu dagaalka ku guuleysto ayuu galaa waxaanu soo marnay waa ogeydeen cid aliyaale cid ina loodisayna may jirin wixii dabahaana watiinu ka soo dhaxboodnay maantana cid intee luqunta ina qabato meel ina geyn kartaa ma jirto qofku markuu dagaalka galayo quus ma aha qofku markuu dagaalka galayo ma shakisana qofku markuu dagaalka galayo ma cabsado qofku markuu dagaalka galayo guusha ma labeeyo awoodii ugu sarreysay oo haysanaa shacbigii wax loogiye ka soo gudbay dagaal loogiye 10 sano soo jiray dalkaas oo burbursan dambaska ka qaaday cirka geeyo wada fooqa ee qaybihii nolosha dhistay ummadaas aynu nahay ummad qoor la qabto manihin cid aliyaale cidina qaban kartaana ma jirto hal awoodun baa inaga sarreysa oo Ilaahay taan loodin karmeeno Ilaahayna mar walba cidii dulman waa u hiil horena hiil buu inoogu ahaa maantana wuu inoogu yahay سياسين كده قال قلنا شريه دين قري كده قال مني سياسة هي أقون هي عقلي هي هرمر بين كده قال منا عد اللي على عد قارتنا قبان كرتانا ما شفتوا قضب كان هيلنا ومرنا هون نقولنا وضبنا أنت وش إذا كتر هذا دولك هكذا هنا مرول بكر وتاجنا هذا مرول بكوي يقول استاتين وأنا أقول إنسان قد يدا كتشكتان بحقه واحد دون إنسان بحقه عندنا مدوسية إنسان إلى هنا ويد اللي ترى ساسا كقول إنسان هاي سودي منا كويد كله قود إذن كحوجين أيها حاسم الناس إذن كحوجين مش تيلا هم بين كحوجين هذا الكلام كذا حياة إرجعن من ما مرن دولة الفترة كله صوت عجين تاعي ورهدا دون إنساننا من ما كهذا شان صورة من ماذا صورة من ماذا أنه إير أفكار لغير هذا دبنا سارن يلي منه
qalniyo warqad malaa wax lagu qoray computer baa lagu qoray bal ku qoro midnimadana doonaysaa waa maxay tii 60kii kaga duwan tahay tii burburtay maxay kaga duwan tahay bal qeexa ujeedada ka leedin waa maxay yaa u doonaysaan wax aan waxa ahayn anagu yeelimayno una soo fadhiisan mayno qof isagiiba garan la waxaan uu doonayo dabeedna ay midnimo kaga dhigan tahay dabeedna waxa haysan in Muuse ay kulmayaan farmaajo oo dabeedna qalniyo warqad saxiib war waxaas ma dhacayaan umadana way soo aragtay waxaanu ku tagnay 26kii Juun cid aliyaale cidna qasabtay ciidan lagu kacay ma jiro annaga cagaha iyaga ku tagnay maanu qaldanayn waanu hagaagsanayn xoog ka weyn kaligayo ayaanu doonayno tan u tagaan islaayno laba noqdo kuwii kale u tago shan noqda kuma aanan qaldanayn Ibrahim Gadla sheegay 60kii dadkaygu markaa dawladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiye mooye doqoniimo ma ahayn halkaasaan ka taaganay cid calaacalaysa ma jirto cid wax tabanaysa ma jirto ka soo gudubnay meel wanaagsan baan joognaa maanta war midnimadaas shan Soomaaliyeed bay ku fadhiday tan doonaysa maxay ku fadhidaa midnimo ereyga soo raaca waa Soomaaliyeed war anagu de Soomaali qaybun baanu ka nahay Somaliland baanu idinkana waxaan idin naqaanaa Soomaaliya dawladda federaalka waxaan leeyahay war ma ka wada hadalaa wax Soomaaliya iyo Somaliland dhaxmara laanagu mas'uul kama nihin Soomaaliya haddii kale oo midnimo Soomaaliyeed doonaysaan iyada nafteeda waan ka hadlaynaa oo dareenkaygu man ka dhiibanaynaa cidii ay ka dhaxaysay 60kii soo fadhiisay oo kaana laakiin tii midnimo kaligeeda oo loo ordo wax soconaya maaha hadalka waxaan kaga baxaya shacbiga reer Somaliland waxaan sheegayaa hadallo yar yar oo dadka lagu dago oo dabeedna lagu celceliyo la israa ku disa dabeedna aad moodo in la qaatayba waxay ku oranayaan waxbay tabanayaan bay ku celcelinayaan qaarida kamid ah laga yaabaa in la yiraahdo inay yiraahdaan waxaan tabanin gamba aan tabanayna ma jirto markay idin ku yiraahdaan waxbay tabanayaan waxa ku tiraahdaan qowl baan lahayn waxbay tabanayaan waxa u dhiganta qowl baan lahayn markay midnimo idin ku celceliyaan ay yiraahdaan ku disa waxa u noqonaysaan daad wararac 3 bishii March 1988kii iyo Cabdi Iidaan oo ahayd sheekadiisu ahayd maansadii daad wararac dabuub kalena waxay tahay 60kii dadkaygo dabuub kalena waxay tahay shantii la isku dari jiray doonisteennii shantii la isku dari jiray didisay u yeedhiyeen hadday midnimo idin la soo qaadanayo idinku yidhaahdaan midnimo waxaa ku tiraahdaan didisay u yeedhiyeen haddii kale energy-giinaba iska haysto waxba didisayna ku odhanina waxaa ku tirahdaan u yeedhiyeen ilaa qiyaamaha u yeedhiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيمير بلاس قومن مرارة دلع مقوسين بيمير بلاس قومن